mas-uuliyiinta akadeemiyada nabadda iyo horumarka ee Somaliland ayaa waxay qodobo ka soo saareen kulan muddooyinkan u soconayay xisbiyada Somaliland madaxdooda iyo sidoo kale shirguddoonka golaha wakiilada sidoo ku soo waramayo Qadar Kaafi Muuse Cali oo nooga soo warama magaalada Hargeysa. iyadoo maalmihii laga soo gudbay ay soconayeen kulamo gaargaar ah oo si wada jira u wada qaadanayeen akademiga nabadda iyo horumarinta oo weheliyaan axsaabta siyaasadda dalku taasoo salka ku haysay sidii go'aanka madambaysa looga gaari lahaa saami qaybsiga kuraasta aqalka wakiilada oo muddooyinkii u dambeeyay uu ka taagnaa muran baahsani. Maxamed Faarax Xirsi waa gudoomiyaha akademiga nabadda iyo horumarinta oo uu weheliyo Mustafa Sacad Dhimbiil gudoomiyaha ururada aan dawliga ahayn ee Sonsaf ayaa sharaxaya ujeedada shirkooda waxay isla gaadheen saddexdan qodob ee hoos ku xusan. kow in arrinta saami qaybsiga kuraasta golaha wakiilada dib loogu celiyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland isla markaana madaxweynuhu go'aanka madambaysa ka gaaro arrinta saami qaybsiga kuraasta golaha wakiilada. laba waxa la isla qaatay in saddexda xisbi u hoggaansamaan go'aanka uu madaxweynuhu gaaro ee khuseeya arrinta saami qaybsiga kuraasta golaha wakiilada. saddex in akaademiga nabadda iyo horumarka iyo dalada ururada bulshada Sonsaf ay ku ilaaliyaan saddexda xisbi qaran fulinta qodobada lagu heshiiyay. talada madaxweynuhu iyaga u soo diray laba cisho ayay halkan isku yimaadeen sabtidii iyo maanta oo salaasa arbacada baan u jeedaa ayay isugu yimaadeen. go'aankii ay ka soo saareen halkan waxay noo akhriyi doonaa Maxamed Faarax Xirsi agaasimaha fulinta ee akademiga nabadda iyo horumarinta. marka intaan inay ku soo wareejin waxaan idin sheegayaa inay saddexda xisbi qaran go'aamada halkan idinka sheegi doono ay isla qaateen horteedana ku saxeexeen madaxweynahana aanu ku celinayno marka dambe. marka laga yimaado kulamada gaargaarka ah ee sida wada jirka gudaha Hargeysa ugu dhex maraya akademiga nabadda iyo horumarinta iyo axsaabta siyaasadda dalka ma jiraan ilaa hadda war rasmi ah oo dhankooda ka soo baxay axsaabta siyaasadda dalka kulamadii ay la qaateen akademiga nabadda. Qadar Kaafi Somali Cable.